walaalkeed ayaa maalmo ka hor ku dhintay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh balse waxay sameysay arin ka yaabisay shacabka Soomaaliyeed iyo kan Puntlandba maxay tahay arintaas ay sameysay gabadha Soomaaliyeed muuqaalkan ayaa ku ogaan doonta balse marka hore wax ka codsanaya inaa muuqaalkan like saarto YouTube-kana subscribe dhahdo sidoo kale gambaleelka furato si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino walaalkii macaan tiisi baa gashay 5 meelood baa lagu kala aasay deeqa Faarax Gambool oo kamid ah haweenka reer Puntland ayaa tusaale u noqotay shacabka Soomaaliyeed kadib geerida walaalkeed oo ku shahiiday dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh deeqa oo ka hadashay dhimashada walaalkeed ayaa sheegtay in uu ku dhintay walaalkeed dagaal xaq ah isla markaasna ay taageersan tahay ciidamada difaaca Puntland sidoo kale deeqa ayaa talaabo kale oo geesinimo la qaaday kadib markii ay ku dhawaaqday in ay ciidanka difaaca Puntland dagaalka kula jira kooxaha Daesh ay ku garab taagan tahay laba neef oo geel ah oo ay ugu tala gashay inay kaga qayb qaadato dagaalka ay ciidamada difaaca Puntland kula jiraan kooxda Daesh ee ku dhuumaaleysata buuraleyda gobolka bari ee Puntland deeqa Faarax ayaa tusaale fiican u noqotay haweenka reer Puntland iyo sidoo kale shacabka reer Puntland dhamaantood waxay muujisay in qof walba uu kaalintiisa ka qaadan karo dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ee ka dagaalamaya buuraleyda gobolka bari ee Puntland ficilka ay sameysay ayaa ah mid mudan in la dhiirigeliyo sidoo kalena lagu daydo tusaalena uu ah kaalinta ay haweenka reer Puntland ku leeyihiin dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ee ku dhumaalaysanaya buuraleyda gobolka bari ee Puntland dhab ahaantii sheekada deeqo Faarax Gambool waa mid mudan inay warbaahintu tabiso si loo muujiyo kaalinta ay haweenka reer Puntland ku leeyihiin dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ku dhumaalaysanaya buuraleyda ciidanka in la garab istaago aad u mudan yahay meeshii Maryam oo ogtihiin aniga walaalkii macaan tiisi baa gashay 5 meelood baa lagu kala aasay maanta hooyaday haddana kama xumadee qadartay dadkii uu shahiiday maanta dadkii soo shahiiday khawaariij buu la dagaaltamayay oo way ku sabarsantaa waan ku sabarsanaa calankaas uu dagaaltay calankaas uu ku maqan yahay hadalkaas waa soo gaabinayaa aad isku fiicnin anu xoolo badan ma lihi laakiinse waxaan ballan qaadaya laba xanaad laba geed ballan qaadaya dhammaantiin aad baa idin salaamaya ciidankana garab istaago caafimaadkana waa caawinaya ciidanka gabar neersa ahay xagga caafimaadka aad baa ugu fiicanahay dhiigga ha la shubo waxaa layidhi Soomaaliya gabdhaha dhiigga kama shubaan waa in la shubaa dhiigga gabdhaha dhiig badan baa ku jira in laga shubaa iyaga dhiiggooda caafimaadana waa in la shubaa ciidankeena rag iyo dumar iyo dhammaan hala istaago waan leenahay meeshay marayaan waad ogjidan meelahay galgalayaan basi iyo halistay ku jiraan